saad waxyaabo badan u cadaadinaysid waxyaabo kaloo muhiim ah ayaa la cadaadsamaya iyo in adiga is eedaysid oo istiraadid saas malaha waa run saas inaan sameeyo ma ahayn asaga iga saxsanaa haddaan saas ku daybal ka waran iyo waxyaabo lamid ah inaa maskaxda maanta dhan ka dhex daaratid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabay soo dhawaada ahlan wasahlan wa marxaban bikum gacmo furan iyo qalbi furan soo dhawaada. mustalaxaadkeenii narsiistaha ku saabsanaa ayaa noo sii soconaya. erayadan amaba calaamadahan waxa waaye iyadoo ay inta badan u badan yihiin dadka narsiistaha ah haddana dadka kale oo toxic individuals oo dad sumaysan oo wanaagsanayn oo ay ugu dhib badan marka la xiriir la leedahay noocu doona ha ahaada xiriirkaasi iyagana way lahaan karaan. marka mawduuca maanta ama xalqada maanta ama ereyga maanta insha Allah wuxuu noqon doonaa caariyaamo maskaxeed. caariyaamo maskaxeed maxaan ula jeedaa? waa markii maskaxda aad moodid inay caariyaamo kaa saaran tahay. ya maskaxda bini aadamka subxaanallahi alcadiim waxaa waaye aalad amaba unug extraordinary ah cajiib ah subxaanallahi alcadiim. maskaxdeena haddaan wax yar waxaan qoonsano maskaxdeena kow of course noo sheegaysa fakarka waxay saameynaysaa caafimaadkeena guud oo general ah physics caafimaadkeena jir ahaaneed bay saameynaysaa hurdadeena saameynaysaa moodkeena saameynaysaa waxaasoo dhan maskaxda marka noo sheegaysa. marka maskaxdii markaad la dhaqmaysid qof noloshaada uu ku jiro yaa bini aadamka wada xiriirka bini aadamkana wax laga maarmin soo ma inaa qof bini aadam la xiriirsid bini aadamka ku nool social beings baan nahay ilaah baa isugu kaaga kala galay wuxuu doonaa ahaada ama qof aad la macaamilaysid wax kasoo gadanaysid dariskaaga dukaanka asxaab qaraabo ehel ilaah baa dad naga dhigaya ilaah baa naga dhigay dad haddana isu baahan. marka hadduu qof marka narsiista noloshaada ku jiro ama uu kuu dhow yahay qofku kaaga dhow yahay maadaama uu kaaga sii daran yahay saameynta uu kugu sameynaya hadduu qof xun yahay waxa waaye way kasii daran tahay soo ma. marka qofka narsiisistaha ah markaad la nooshahay mar lamaana ama walaal aad u jeceshahay ama qof si aad u kala baxdaan ama kala fogaanshihiinaya ay adkaan karto dhibaatadeedana way badan tahay. marka waxyaabaha keena mustalaxa maanta waxyaabaha keena foogaas amaba caariyaamadaas amaba daruurtaas madow oo madaxa kaa saaran waxa waaye wixii haddaad ku dhex jirtid haddii aad kuba dhex jirtid oo lase relationshipki haddaad ku jirtid ninkii naagtaadi hadday tahay ama ninkaaga uu yahay ama waalidkaa uu yahay wixii haddaad ku dhex jirtid oo si toos ugu jirtid dee dhibkiibaa taagan inkiraadii baa taagan gaslightingkii baa taagan wixii baa taagan. marka maskaxdaada waxay isku dayaysaa inay wixii oo dhan hal mar process garayso oo marka way jirkaaga ku daalaya. qofkan miyaad isdifaacdaa miyaad u dhimirsaa miyaad maxaan ku idhahdaa fahantaa inaa isku daydid wuxuu sheegayo miyaad hadduu ilaah ku wax sheegayaan macna ilama samayn taasoo soo baranay muran iyo isdifaac iyo been abuur iyo gaslighting iyo waxyaabahaas oo dhan uu sameynaya something adiga marka wixii waxay isku dayaysaa inaad macno u samaysid energy badan bay kaa qaadanaysaa. marka qofkan la dhiilgarayntiisa energy badan bay kaa qaadanaysaa waxyaabihii kale oo noloshaada ku saabsanaayo dhanna laga rabay goonideeda inaad u samaysid. maskaxda bini aadamka marka si ay noo difaacdo noo ilaaliso waxay sameynaysaa dee way slow down garaynaysaa ugu dambeyntiina waxay noqonaysaa in ay shut noqotaba ay close garayso. marka maxaa dhacda in badan marka waxaa dhacaysa la soo xiriiro waxay iskaga wada mid yihiin sideedii hore ma ihi waan iswaayay anigii sidaan u fakarayo maskax la-aan baa isku arkay dulqaad yaraan baa isku arkay maskaxdeena markuu qofku stress amaba pressure amaba daqdi amaba culays zaa'id ah uu hayo noloshiisa dee of course naftii maskaxdiisay u difaacdo waxaa yaraanaya activitygii maskaxda inay active ahaataa yaraanaysa. marka waxaa yaraanaysa qofka clear ma u fikiraayo qofka wuxuu is arkayaa asagoo hadduu ilaah kuu roon yahay waxyaaba badan ilaaway qofka wuxuu is arkayaa asagoo dulqaadka ku yar oo pressure yar oo wax yariis ah oo pressure ah uusan qaadan karin. qofka wuxuu is arkayaa asaga oo fahmada ku yaraatay waxyaabo badan ayaa la report garaya. marka haddaad qofkii kasoo tagtid marka qofka haddaad noloshaada uusan ku jirin iyadana sidoo kale waxaa kugu dhacaysa in aad
caaryaamadaas ama daruurtaas madow aysan si dhaqso leh si fudud aysan kaaga dhaqaaqin aysan kaaga tegin waxaana taasna waxaa ugu wacan in aad maanta dhan cajaradii daaratid maxaan saas u dhihi waayey haddaan saas dhihi lahaa saas iga habbooneed bal muxuu qofkaas saas iigu sameeyey waxba ma waa sameynin talow saas muxuu ka waday malaha adaa ka khaldanaa malaha runtiis bay ahayd talow maxaan ku irahdaa miyaan dulmiyey saad maanta dhan cajaradaas marka u daaranaysid ya exhaustionkii iyo maskaxdaadii clarity daal iyo madax wareer baa ka qaadaysa maskaxdaada clear ma u fakeraysa marka ceeryaamadan daruurtan mugdiga ah oo dadkan toxic ah ama narsiista ha ahaadaan ama si kale ayagu toxic ha u samaysnaadaane waa wax jira oo la ogyahay gabar baa maalin dhexdaas waxay iigu soo qortay qof adag haddaan ahay oo strong aan ahay ya qof strong ah haddaan ahay miyaana qofkaas iska celin karin miyaan la noolaan karin amaba la dhaqmi karin anigoo oo anoo goynin qofkaas miyaan iska dhicin karin way u fududahay qofku inuu saas yidhaahdo hadduusan wixii arkin gabar sidoo kale daawadayaasha kamid ah ayaa waxay iisoo qortay ama iisoo duubtay ee dhehayso qofkii waxaan arkay ya unbaa fahmi kara waxaan ka hadlayno qofkii waxaan arkay unbaa fahmaya waxa laga hadlayo waa run qofka hadduusan arkin waxaan waxay la tahay waxaan maxaa dadkan ka khaldan iyo waalwaalayihiin ya marka dadka la dhaqmay waxay arkayaan waxaan inay run tahay فيديو aan falcelin kasoo sameeyay oo walaashan xanaan shidana aan ka hadlayay waxyaabaha qaarkood ay kala ilowday maxaa ugu wacan waxay wala xasuusataa baa leeyahay waxay u xasuusataa waxa waagaas waxa yaraanteeda wuxuu ku dhacay ahaa alxamdulillah ya ha iska adkaato nolosha whatever maybe dhibaatooyin hala qaxo hala dagaalamo hala waxaas ahaado laakiin waxay haysatay safe ya haven ama hooyadeed iyo meesheedii iyo maxaan ku raadaya circumstanceskii iyo environmentkii ay ku kortay bay joogtay ay haysatay marka waxay haysataa wax u preserve gareeya maskaxdeeda ama u ilaaliya xusuusteeda jacayl bay haysataa ilaali haysataa wax khalkhal geliya maysan arkin ama markii kasoo tagtay halkaas haddana on top of that ay la kulantay dhibaatadii ay kala kulantay ninkii lagu darayay walaasheedii wixii oo dhan ahaa that shook everything to its core ya marka khasab waxa imaanaysa tusaalan ka dhiganaya baayo waxa imaanaysa qofkii inuu wixii suppression ku sameeyo oo iloobo qofka marka waxyaabo badan suppression ugu sameynaysid narcissistic focusna waxa kaloo keena saad waxyaabo badan u cadaadinaysid waxyaabo kaloo muhiim ah ayaa la cadaadsamaya waxyaabo marka dhacdooyinka ku xeernaa waxyaabaha qaarkood way isla wada iloosamayaan balama muhiimad kale ilaabaysaa waxyaabo muhiim wax isku gudacda isku dayna soo xasuusid baa ilaabaysaa marka narcissistic fog ya caaryaamadaas iyo daruurtaas madow oo maskaxdaada ku degan ya waxay ka imaataa dadka la dhaqmay dadka toxiga ah oo narcissist ah shalay mise daraad bay gabar iisoo qoraysay dabeecadeedii oo dhan way isbedeshay qaadkaygu iga tegay walwal iyo waxaan isku arkay wax aan hore u haysan jirin iyada kaligeedna ma ah almost all walaalaha ila soo xiriiro dhan taas ayay ka wada siman yihiin taasna waxaa keenay narcissistic fog marka narcissistic fog dee cilaajkiisu isagana waxaa waay qofkan ood kula dhaqantid hadalkii soo koobtid wixii oodan kasoo qaadin inuu maxaan ku idhahdaye toos adag kuu socon ku personal adag kasoo qaadin qofkan ood kasoo qaadid inuu qof dagaal iyo muran u diyaar ah aadan lasii gurin ya liiska wuu dheeryahay ahaa soo daawa insha allahu tacaala playlistka oo dhan insha allah iyo haddii kalena jarba gebigoodaba ya haddii kuu suurtagalaysa qofkaasi inaad jartid dambina kuguma noqonayso qofkuu doona ha ahaado waxyaabaha xaqa la iskugu leeyahay waajibka la iskugu leeyahay wixii soo dhaafsiisan ya in qofkaas loo wado muhiim ma aha bilcagsi waajib waxaa kugu noqonayso in aad maskaxdaada iyo naftaada iyo caafimaadkaaga ilaalisid saa ilaahay ugu cibaadaysatid oo howlihii kaloo lagu diray aad uga soo baxday naftaada qof inaad raali gelisid ya uun ma aha in adduunka ma noolide marka narcissistic fog ama caariyaamada ama daruurta madow oo maskaxdaada kor degan waxay ka imaataa dadaan soo khulaasa waxay ka imaataa qofkan
برشرسك وكسو ساري دان ضغوطاتك عليسك وكسو ساري دان oo ahayd iswaalkiisa ka iimaanaysay xanaaqiisa ka iimaanaysay beentiisa ka iimaanaysay nabashadiisa ka iimaanaysay alifaadiisa ka iimaanaysay dhaliilintiisa ka iimaanaysay iyo in adiga is eedaysido istiraahdid taas malaha waa run saas inaan sameeyo ma ahayn asaga iga saxsanaa haddaan saas ku daybal ka waran iyo waxyaabo lamid ah inaad maskaxda maanta ka dhex daaratid marka waxaa kaa tagaysa inaad clear u fakartid waxaa kaa tagaysa maskaxda inay kaa daciif noqoto xusuustaada ay yaraato waxaa fahmada kugu yaraanayso dulqaadka kugu yaraanayo xanaaqaaga badnaanayo marka caafimaad maskaxeed iyo caafimaad jireed buu u daran yihiin dadkan toxic ah oo khaasatan narcissist-yaasha ah marka insha Allah xaqada maanta intaas ku saabsaneyn waxaan ila ka rajeynaa inaan cun kala baxdeen intaas waxaan kaga tagayaa waan bash iyo waraaqay farxad iyo caafimaad iyo hore u soo cosho iyo fahmad badan ku dheehan inuu Ilaahay nabad siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh